sidee loo xalin karaa khatarta dhalinyarta ay samayso? Waxay caan ku noqonayaan wax ay halis ku tahay naftooda, dadkooda, dalkooda iyo waalidiintooda. Adiga hadda i daawanayo ma samayn lahayd khatarta ay samaynayaan dhalinyaradan si ay u noqdaan caan? Kow, waddanku ma lahan sharci oo qabanayo dhalinyartaas. Labo, si ay u noqdaan caan waxay samaynayaan waxyaabo halis ku ah naftooda. Saddex, waddanka oo aan lahayn wax shaqo ah. Number afar, waalidiinta aan ka warqabin ilmahooda waxay samaynayaan. soo dhawaada saaxiibada qiimaha badan ee ku xiran kanaalka Ibn Abubakar. waa walaalkiina Ibn Abubakar. fadlan haddaan ku cusub tahay page-keena na soo follow garee, videona like saar. Like waxay naga caawinaysaa inuu video meel fog gaaro. aad iyo aad u mahadsantihiin. like saar videoga, waxaan filaya inaad like ay saartay, followna ay dhahday, siina share gareen oo gaarsii walaalahaaga. maanta waxaan ka hadli rabaa khaladaadka ay sameeyaan dhalinyarada si ay u noqdaan caan. taas maxaan ka wadaa? yacni khaladaadka ay sameeyaan dhalinyarada si ay caan u noqdaan waxaan ka wadaa dhalinta soo baxday yacni sanadkaane waxay caan ku noqonayaan wax ay halis ku tahay naftooda, dadkooda, dalkooda iyo waalidiintooda. sidaas maxaa u dhahay? ila daawada videogan. waadna si fiican ayaad usoo aragtay oo waad soo daabatay. adiga hadda i daawanayo ma samayn lahayd khatarta ay samaynayaan dhalinyaradan si ay u noqdaan caan? jawaabta isla markii waxaad soo istaagaysaa maya. marka maxaa koosgareeyey oo maxaa sababa in ay halis geliyaan naftooda si ay caan u noqdaan? waxaan ka soo qaadayaa qodobo yar. kow, waddanku ma lahan sharci oo qabanayo dhalinyartaas. labo, si ay u noqdaan caan waxay samaynayaan waxyaabo halis ku ah naftooda. saddex, waddanka oo aan lahayn wax shaqo ah. number afar, waalidiinta aan ka warqabin ilmahooda waxay samaynayaan. number shan, waxbarashada. yacni qof aan wax baranin ayaa ficilkaas ku dhaqaaqi karo. qof wax bartay ficilkaas kuma dhaqaaqi karo. qof wax bartay iyo qof aan wax baran isku mid ma ahan, isku aqlina ma ahan. shantaas qodob ayaan ka soo qaatay waxyaalaha koosgareeya in ay dhalinyartan naftooda haligaan ama naftooda khatar geliyey si ay u noqdaan caan. sidee loo xalin karaa khatarta dhalinyarta ay samayso? kow, waa in ay helaan hal abuur. labo, waa in ay helaan shaqo. saddex, waa inay helaan wax ay ku mashquulaan. afar, waa in ay ka warqabaan waalidiinta ubadkooda waxa ay samaynayaan. number shan, waa in ay raadiyaan wax dhaama waxa ayagu hadda samaynayaan. intaas ayaan ku soo koobayaa. marka aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin sida quruxda badan aad ii daawateen. muuqaalkiisa xiga intaan ku kulmi doono sidaas iyo amaan allah. muuqaalkana sii sheergaray. aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.